booqashada indhaynta iyo isbarashada ah ee uu maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku sameynaya dhammaan xafiisyada xarunta madaxtooyada qaranka ayaa waxa ku welinaya madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ahayd oo isagu baraya xafiisyada shaqada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo saraakiil kale oo madaxtooyada ka tirsan ugu horeyn madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ah Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu gudoonsiiyay madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud hadiyado qaali ah oo ay ku jiraan saacado iyo seefo dahab ah hadiyadahaasi oo aad u tiro badnaa isla markaana inta uu talada dalka hayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay dowladaha caalamka gudoonsiiyeen siinta hadiyadahaasi kadib waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu soo wareejiyay dhammaan xafiisyada ku yaala xarunta madaxtooyada isagoo mid warbixin uga dhageystay dadka ku shaqeeya xafiisyadaasi sidoo kale waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh meelihii muhiimka ah ee la soo tusiyay kamid ah kaydka gaadiidka iyo shidaalka madaxtooyada iyadoo warbixin ku saabsan howlaha xaruntaasina uu ka dhageystay dadka ku shaqeeya halkaasi booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynihii hore ee dalka oo ahayd mid socod luga isla markaana saacado badan qaadatay ayay sidoo kale waxay ku tageen xafiiska gudoomiyihii hore ee baarlamaanka xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan halkaas oo isagu ku soo dhaweeyay isla markaana uu mudane Xasan Sheekh madaxweynaha dalka soo tusiyay inta uu ka kooban yahay xafiiska uu ku shaqeyn jiray hogaamiyaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale tagay xafiiska ra'iisul wasaare xukuumadii kumeel gaarka ah Dr. Cabdiweli Gaas isagoo midna u soo tusiyay xafiisyada shaqada booqashada uu maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku tagay xarunta madaxtooyada ma ahan mid halkan lagu soo koobi karo hase yeeshee waxa kale oo jiray inay tageen madaxda wasaaradda maaliyadda xukuumadda kumeel gaarka ahayd iyo isbitaalka madaxtooyada oo lagu dabiibo askarta iyo bukaanka kale ee dowladda iyo shacabkaba leh waxaana markii ay soo gabagabeysteen socodkooda ay ka qayb galeen munaasabad ay shaqaalaha madaxtooyada ku sagootinayeen madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed kuna soo dhaweynayeen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ugu horeyntii ka hadlay munaasabadaasi madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo uga mahad celiyay shaqaalaha madaxtooyada wanaaga iyo wada shaqaynta ay u muujiyeen inta uu xilka hayay salaam kadib mudane madaxweyne sharaf weyn noo taamaanteen aan kugu soo dhaweyn halkan ujeedaduna waa in aad isbaratiin adiga iyo shaqaalaha madaxtooyada oo runtii sida wasiir dawluhu ka dhawaajiyay u soo dhabar adeegay hawl aad iyo aad u culus iyo waqti amniguna uu xun yahay dhaqaalana uusan jirin dadkaana waxay ku soo shaqeeyeen mudane madaxweyne damiir adag iyo inay ka mira dhaliyaan hadafka dowladnimada falilaahi alxamdu waxaa ilaahay mahadiisa maanta in halkan la soo gaaray waxaan rabaa hortaada inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha madaxtooyada dhabar adeygii iyo dadaalkii lahaydadnimada iyo wadaniyadda ay u galeen istaajinta qarannimada sidoo kale mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka ayaa shaqaalaha ku dhiirigeliyay in ay ula shaqeeyaan sidii hore si la mid ah isagoo u cadeeyay madaxweynuhu in uusan marnaba ku dhaqmi doonin nin jeclaysi si cadaalad ahna ay ku shaqeysan doonaan laakiin waxaan rabaa maanta halkan inaan idinkaga sheego hal fariin waxaad u shaqaynayseen ood shaqaalo u aheedeen dowladda Soomaaliya shaqaalihiinni ayaana tihiin madaxweyne Sheekh Shariif umaydaan shaqaynaynina maantana aniga iima shaqaynaysaan laakiin waxaad u shaqaysaan jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dowladda ay leedahay ee la yiraahdo dowladda Soomaaliya qof kasta shaqadiisii uu madaxtooyada ka hayay sideedii uu haysanaya xafiiskii uu joogay iyo mas'uuliyadii uu hayay sideedii ayuu u haynayaa ilaa asiga sabab oo mas'uuliyadaas looga qaado uu la yimaado laakiin in madaxweyne baxay madaxweyne cusub yimid wax isku bedela ma jiraan aan rabaa inaad kalsoonidaas aad qabtaan laakiin qofkii shaqadiisa loo begi waayo ama shaqadiisa sida ahayd oo loogu talagalay uga gaabiyo haddee qofkaasi waa raalli ah walda qofkaasina yani lama eriyo shaqaale dowlo anigu ma eri karo waa laga yaabaa in la bedelo madaxtooyada laga bedelo meel kale loo bedelo in la yiraahdo
4 sano kahor markii uu xilka qabanayay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ma aysan ahayn xarunta madaxtooyada qaranka sida ay hadda tahay oo waxa markaasi ka muuqanayay burbur baasan oo ka soo gaaray dagaaladii sukeeye ee wadankan ka dhacay hase yeeshee iminka ayay tahay mid aad u qurux badan waxaana bilic soo celinta xarunta madaxtooyada ka dambeeyay madaxweynihii hore ee dalka oo dadaal ku bixiyay inkastoo wali ay wax badan u harsan yihiin hase yeeshee madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga fadhiyaa 4 sano ee soo socota haddii rabbiga awoodda leh uu ogolaado inay xarunta madaxtooyada la mid noqoto isseed hawsyada caalamka maadaama ay tahay isha qaranka. Sacdiye Maxamed Xasan, telefishinka qaranka Soomaaliya, Muqdisho.